tobanka dambea lagu jiraa, tobanka dambe kaca, tobanka dambe gacmaha kor u taaga, tobanka dambe ilaahay barya, tobanka dambe ilaah subxaana wa tacaala aad iyo aad buu addoommadiisa ugu naxariisanaya, dembi dhaaf ballaaran buu fidinaya, ummad fara badan ayuu naarta ka xoreynaya. ilaahay ha nagu daree. rabbi subxaana wa tacaala wax badan dadaala, wax badan khayrka ku socda, wax badan tobankan dambe ka faa'iidaysta. tobankan dambe khayr fara badan baa ku jira, tobankan dambe fadli badan bay leedahay. habeenkaasaa laga yaabaa inuu rabbi ku waafajiyo. ka raadiya tobanka ugu dambaysa bisha barakaysan ee ramadaan buu rasuulku yidhi, khaasan tirooyinka witriga ah ee markaa isdheer. si kastaba ha ahaatee tobanka oo dhan aad iyo aad ha loo raadiyo, ha loo dadaalo. bismi illaahi araxmaani araxiim. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. سلسعنا ولا ليال مسلمين تبريهان دنبئ waxay geli doonaan nafaxaad naxariisiyo laga dhexelo tobanka ugu dambaysa ee bisha barakaysan ee ramadaan. marka la fiiriyo walaalayaal, waa ayaamaha alla agtiisa ugu fadliga badan subxaanahu wa tacaala. xasanaadkaa la laalaaba tobankan dambe, naxariista allaa soo degta tobankan dambe. ilaahay wuxuu khaas uga yeelay inay dadku ka helaan in badan oo ka mid ah khayraad, dembi dhaaf iyo raadi ahaasha xaggiisa ka timid. rasuulka sala allahu calayhi wasalam waxaa ka sugnaaday inuu ahaa mid cibaadada iyo taacada ku dadaala tobanka ugu dambaysa ee ramadaan wax ka badan wixii uu samayn jiray ayaga maalmaha wixii ka soo haray. caaisha ilaahay ha ka raali noqdo, waxay ti rasuulku wuxuu ahaa sala allahu calayh wasalam mid dadaala tobanka ugu dambaysa si uusan u dadaalin khayrkood. waxaa soo aroortay oo kale rasuulka sala allahu calayhi wasalam haddii uu galo tobanka ugu dambaysa, guntiga ayuu dhiisha isaga adkayn jiray sala allahu calayhi wasalam. habeenkii ayuu noolayn jiray sala allahu calayhi wasalam. ehelkiisa ayuu toosin jiray sala allahu calayhi wasalam. saxaabada in badan oo ka mid ah taabiciyiinta salafkii saalixa ahaa cibaadaday ku dadaali jireen tobanka ugu dambeeya wax ka badan sidii ay u dadaali jireen intaa waxa aan ahayn. iska dhaafi qaarkood qaarka kale ayaa tobankaa dambe mar allaala marka la gaaro tahajudka, akhrinta qur'aanka, istikfaar dalabka, dikriga alle aad iyo aad ayay u weyneyn jireen. walaalayaal, tobankii ugu dambaysay ee ramadaan ayaan lugta la galnay. waxaana laka rabaa oona loogaga baahan yahay inaan ka ajir xisaabsano, inaan ka ajir gurubsano. fadaa'isha tobankan dambe ee ramadaan ku jirta waxaa ka mid ah in laga dhex helo habeenka sharafta iyo qiimaha u saaxiibka ah waa leylatulqadrige. sababtu waxay tahay leylatulqadri, ilaah asagoo tilmaamaya wuxuu yidhi innaa anzalnaahu fii leylati alqadri, annagu waxaan soo dejinay qur'aanka habeenka leylatulqadriga ah. maxaa ku ogeysiye maa leylatulqadri? leylatulqadrigu khayrun min 1000 shahr, 1000 bilood ayuu ka khayr badan yahay. wuu la khayr dhan yahay ma ahee walaalayaal, waa uu ka khayr badan yahay. halkaa habeen cibaado taaco ah, diin allaad ku soconayso, rabbi amarkiisa aad ku fulayso way ka khayr badan tahay 83 sano taqriiban waqti lagu qiyaasay cibaado aad markaa qaban lahayd. leylatulqadri khayrun min 1000 shahr, waa 1000 bilood. malaa'igtaa soo degta, subxaana allah, malaa'igtaa soo degta. tanazalu lmalaa'ikatu waaruux, iyo ruuxii waa malakul jibriile. habeenka ahlu samaawaadkii ahlu ardada kulma, malaa'igtii sharafta lahayd ayaa idin alla ku soo degta. jibriil ayaa hogaaminaya ummadda adduunka joogta ee arlada ku sugan
ee dembi dhaafka weydiisanaysa ee rabbi naxariistiisa raadinaysa oo gobolkood taagan si ay u tukadaan, gobolkood musxafka qur-aankuu dhabta u saaran yahay, ilinta indhahooda ka timidna masxafka wuu qoyay. qaarkood ay wareegayaan oo ay raadinayaan dad baahan oo masaakiin ah, jeebka lacagta ugu jirtana ay ugu talagaleen wixii alla ka qaado rabbina u qadaray inay intay la soo bixiyaan miskiinka gacantiisa ay ku ridaan. gobolkood ayaa sujuudsan, gobolkood ayaa taagan, gobolkood ayaa rukuucsan. laylatulqadri khayrun min alfi shahr, 1000 bilood ayuu ka khayr badan yahay. tanazalu lmalaa'ikatu waaruux fiiha bay kusoo degaan habeenkaa gudihii, iskama soo degaan malaa'igtee biidni rabbihim bay ku soo degaan fasaxa rabbi. waatuu ilaah aayad kale ku tilmaamay jibriil markuu rasuulku ka habsaamay inuu yidhi wamaa natanazalu ilaa biamri rabbika, maxamedow anagu ma soo degno haddaan malaa'ig nahay ilaa amarka ilaah mooye subxaana wa tacaala. wamaa natanazalu ilaa biamri rabbik lahu maa bayna aydiina wamaa khalfana wamaa bayna dalik wamaa kaana rabuka nasiya. rabbigaan kuma iloobin subxaana wa tacaala. cajiib badanaa habeenka, raaxo badanaa habeenka, udug badanaa habeenka, khayr badanaa habeenka. malakul jibriil baa adduunka jooga, malakul jibriil baa arlada ku soo degay, malaa'igtii baa soo degtay, ahlu arlihii masaajidaday ku xoomayaan, 8 sac bay tooseen, beydka allay galeen, qaaraa sida cishaa ay u tukadeen, taraawiixdii ay u tukadeen, amba beydkii ilaahay ka soo bixin ayagoo dalbaya habeenka fadliga uu leeyahay inuu alla waafajiyo. caaisha radiallahu tacaala canha waxay tiri rasuulkii ilaahayow haddaan ogaada leylada ay laylatulqadri ay tahay maxaan dhahaa, maxaan ilaahay ka baryaa, maxaanse weydiistaa? rasuulku wuxuu ugu jawaabay quulii allaahuma inaka cafuwun tuxibu alcafwa facfu canii. caaishay waxaad dhahdaa allaha cafinta jecelow iska key cafi. allaahuma inaka cafuwun, alla cafin badan baa tahay, tuxibu alcafw cafintana waad jeceshee, allow isaamax, allow ii dembi dhaaf. waa caaisha radia allahu tacaala canha. maxay rasuulka weydiinaysaa? laylatulqadri haddii ay waafaqdo wixii ay ilaahay weydiisan lahayd. maxaan ilaahay weydiisanaa laylatulqadriga? dumarkeenan inay dahab helaan, ayuuto fara badan ay helaan, waxyaabo fara badan oo noocaasa inay gaaraan, raggeennana inay helaan akoono bangi ah, inay helaan gawaari cadcad ah, inay helaan xaasas kale iyo waxyaaba noocaas oo kale. waa la kala fogaaday. rasuulka sala allahu calayhi wasalam caashay waxaad dhahdaa buu yidhi allaha cafinta jecelow iska key cafi. waayo hadduu mar rabbi ku cafiyo wax kaa maqan ma jiro. addoonkaygiiyo waan ku saamaxay, addoonkaygiiyo waan kuu dembi dhaafay, addoonkaygiiyo waan ku dhaafay oo dembigaagii waa kaa tirtiray. hadduu rabbi yidhaahdo wax naga maqan oo kale waa maxay? dembi dhaafka alla noo dembi dhaafo baahi badan baa loo qabaa. marka aakhiro la tago rabbanaa atmim lanaa nuuranaa waqfir lanaa bay leeyihiin, alloo noo dembi dhaaf. qiyaamaa la taagan yahay, qiyaamaa la joogaa, istikfaartii dembi dhaafkii ilaahay bay weli baahi u qabaan inuu ilaahay cafiye subxaana wa tacaala. sidoo kale aabbaheed baa rasuulka u yimid, wuxuu ku yidhi yaa rasuul allah callimnii duca ibar aan kula ducaysto salaadayda dhexdeeda. abuubakrow waxaad dhahdaa buu yidhi allaahumma inii dalamtu nafsii, allow nafteydiin baan dulmiyey, dulmi ayaan dulmiyey fara badan. walaa yakfiru dunuuba ilaa anta, dembigu ma dhaafo qofaan adi ahayn. fakfir lii makfiratan min cindika warxamnii inaka anta algafuuru raxiim. waa qoys ayaga oo dhanba wada khayr socda ah. aabbihii dhinac buu ka weydiinayaa oo rasuulku wuxuu amra inuu dembi dhaaf weydiisto. inantii dhinac bay ka weydiinaysaa rasuulka oo waxay weydiisanaysaa wixii ay ku ducaysan lahayd. rasuulkuna dembi dhaaf dalbo ayuu leeyahay. idan dembi dhaafka ayaa wuxuu noqday shayga ugu sareeya ee qofka addoonkee ama bani aadamka uu markaa helo. saa darteed walaalayaal, 10kan waa 10kii lagu helayey, waa 10kii ilaa khayrkii wanaagga ku bixinayey, waa 10kii in la kaco ay markaa mudnayd. waxyaabaha kale ee rasuulka uu samayn jiray 10kan dambe waxaa ka mid ahaa inuu ictikaafi jiray. adduunka intuu soo xirxiro yuu beydka alla naftiisa ku xabisi jiray.
maxaa ka qiimo badan guriga Allah oo la fadhiyo, maxaa ka qiimo badan guriga ilaahay oo lagu nagaado, maxaa ka qiimo badan guriga alle oo weliba ramadaan ay tahay oo la fadhiisto, oo weliba 10ka dambe lagu sii jiro oo la fadhiisto, oo weliba habeenada tirada isdheer ka ah ee Laylatul Qadriga in la helo ay u badan tahay oo beydka alla lagu ictikaafo. waa shay aad iyo aad u qiimo badan. naxariis Allah lagu hela, dembi dhaaf Allah lagu hela, naftaa lagu layliyaa, naftaa lagu edbiyaa, naftaa lagu celiyaa beydka alle, naftaa la xabisaa, shahwaadkii xuduudka adduunka laga xabisayaa, waa la soo gaabinayaa, beydka Allah la fadhiisanayaa, ma uusan bixi jirin ilaa xaajada insaanka mooyaane sala allahu calayhi wasalam. haddaba habeenkaa 10ka ah ama 10kan ugu dambaysa bisha barakaysan ee ramadaan yaan loo daymo la'aanin, aad iyo aad ha loo dadaalo. rasuulku macawistuu xiran jiray sala allahu calayhi wasalam, waa uu dadaali jiray sala allahu calayhi wasalam. macawistuu xiran jiray waxaa loola jeedaa baa la yidhi cibaadaduu u firfircoonaan jiray, cibaadaduu u degdegi jiray, cibaadaduu qaban jiray. saa darteed baa waxaa la yidhaahdaa arrintan mi'sarkayga ayaan u adkaystay. ilaan qofku markuu howl qabanayo macawistuu xirtaa, guntiguu adkeeyaa, dhiishuu isaga dhigaa, si hadhow asagoo shaqada ugu dhex jira yaysan ka furmin oo kale. waxaa kaloo lagu fasiraa dumarkaba inuu isaga dheeraan jiray sala allahu calayhi wasalam. ii kiciye ayuu dhihi jiray sawaaxibulxujuraadka, dumarka qowladaha jiifa kiciye, ha tukadaane, ilaahay ha caabudaane, badanaa oo badanaa gabdho adduunka dhar ku qaba, aakhirana ku qaawan, laa ilaaha ila allah. badanaa oo badanaa kaasiyaad fi dunyaa, caariye ah aakhira marka la fiiriyo. habeenka maanta waxaan ku noolaynaa turub, waxaan ku noolaynaynaa laadhuu, waxaan ku noolaynaynaa filaan iyo aflaan la daawado, waxaan ku noolaynaynaa waxyaabo kale iyo musalsalaad la daawado. xaalku saa ma aha. 10ka dambea lagu jiraa, 10ka dambe kaca, 10ka dambe gacmaha kor u taaga, 10ka dambe ilaahay barya, 10ka dambe ilaahay subxaana wa tacaala aad iyo aad buu addoommadiisa ugu naxariisanaya, dembi dhaaf ballaaran buu fidinaya, ummad fara badan ayuu naarta ka xoreynaya. ilaahay ha nagu daree. rabbi subxaana wa tacaala baqdintiisa iyo khayrkiisa la dalbado iyo cabsidiisoo lagu dadaalo waa shayga markaa lagu liibaano. inahu man yattaqi wayasbir fa ina allaha laa yudiicu ajra almuxsiniin buu dhahay ilaahay subxaana wa tacaala. wax badan dadaala, wax badan khayrka ku socda, wax badan 10kan dambe ka faa'iidaysta. 10kan dambe khayr fara badan baa ku jira, 10kan dambe fadli badan bay leedahay. habeenkaasaa laga yaabaa inuu rabbi ku waafajiyo. ka raadiya 10ka ugu dambaysa bisha barakaysan ee ramadaan buu rasuulku yidhi, khaasan tirooyinka witriga ah ee markaa isdheer. si kastaba ha ahaatee 10ka oo dhan aad iyo aad ha loo raadiyo, ha loo dadaalo. rabbina